waxaan ahay mid caajis badan ma awoodo inaan wax un qabto mana awoodo inaan waqtigooda ku qabto haddaba sideen uga gudbi karaa caqabadan waa su'aasha ugu badan oo in badan oo inaga mid ah ay isweydiinayaan dhammaanteen waanu wahsanaa mararka qaar balse waxay dib noqonaysaa haddii ay caado kuu noqoto inaad dib u dhigato howlaha kuu yaala adiga oo og caqabadaha aad kala kulmi karto haddii aadan samaynin howlahan amin wanaagsan xilli walbo ay idiin tahay ku soo dhawaada aqoon doon channel muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa sida aan u bedeli karno caqabadan caajiska iyo wahsiga ah oo aan u abuuri karno caado cusub balse haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqanayso channelkan fadlan subscribe dheh oo taabo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaaladeena hana ilaawin inaad muuqaalka like saarto sheerna dheh oo la wadaaga asxaabtaada dib inoogu celi mawduuceena haddaba si aad uga hortagto caajiska iyo wahsiga una abuurto caado cusub waxaa lagaa doonayaa inaad samayso qodobadan qodobka koowaad shaqo walba oo aad qabanayso waxaad u qabataa qayb arrintan waxay kaa caawin doontaa inaadan dareemin culayska shaqadaas qodobka labaad dhanka wanaagsan ka fiiri howsha aad mar walba dib u dhigto haddii aad ka walwalsan tahay inaad guuldaraysan doonto waxaad helaysaa marmarsiyo aad dib ugu dhigato howsha adigoo ka fogaanaya inaadan wax dhibaato ah la kulmin balse waxay tani kuu horseedaysaa dhibaato kale sababtoo ah haddii aad howsha dib u dhigato waxaad haysataa waqti yar oo aad ku qabato taasoo kuu horseedaysa inaad culays badan dareento iyo walaac qodobka saddexaad qorshe sii samayso haddii aad og tahay in wax gaara uu kugu kalifayo inaad wahsato waxaa u baahan tahay inaad isticmaasho istiraatiijiyada cilmi nafsiga ah ee ah inaad sii qorshayso waxa aad qaban doonto haddii aad la kulanto wax kugu riixaya inaad iska dayso waxaa laga yaabaa tusaale ahaan haddii uu qof kugu casuumo inaad banaanka aadaan ama aad soo shaahaysaan ama waqti badan aad isla qaadataan adiga oo og inaad rabto inaad casharadaada akhrisato waxaa macquul ah inaad door bido inaad kulankaas aado ama qofkaas waqti la soo qaadato qodobka afaraad yaray dadaalka aad ku bixinayso si fudud u bilow howsha tusaale ahaan haddii aad aalamiitayso subaxii ku labiso dharkaaga orodka haddii aad doonayso inaad subaxii orod samayso amaba meel aad ka arki karto sii dhigo waxyaabaha aad doonayso inaad ka shaqayso si marka aad subaxii u soo kacdo ay u noqdaan waxyaabaha ugu horeeya ee aad aragto qodobka shanaad fikir dhab ah oo mustaqbalkaaga ah sawiro badankayn waxaan jecelnahay inaan rumaysano inaan mustaqbalka heli doonno waqti badan waxaan istusnaa inaan noqon doonno dad isku toosan tamar badan kuna nool nolol wanaagsan oo aan wax dhibaato ah lahayn qodobka lixaad u naxariiso naftaada tani waxay u muuqataa waxa ugu dambeeya ee ay tahay inaad samayso haddii aad kala bar ka mida maalintaada aad ku bixisay internetka adigoo lagaa rabay inaad shaqo qabato ama aad waxyaabo kala samayso ogow waxa aad dishay waqtigaagii waana dayacday balse xaqiiqdii waxaa la ogaaday in dadka wahsiga badan aysan nafsadooda jeclayn waan filayaa inaad muuqaalkan ka heshay inta aan ku kulmi doonno muuqaalka xiiso badan waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh